degmada Dhekaasuft oo kamid ahayd 16 degmo ee ku soo biiray deegaanka Soomaalida kana tirsan gobolka Liban ayaa tan iyo intii laga dhigay degmo waxa ka muuqanaya isbedel horumarineed oo horseeday in ay magaaladu bilic yeelato taasi oo hormuud u yihiin bulshada u dhalatay degmada Dhekaasuft sida ay tilmaamayaan qaar kamid ah bulshada ku nool magaalada Dhekaasuft. Magaaladan waa magaalo daayar waqti yarna jirta da'deeda iyo say ku horumarkeedana kala duwan yihiin horumarkeeda aad u baaxad u leeyahay dadka u dhashay markii dawlad deegaanka Soomaalida ay maxaan ku yiraahdaa ka dhaqan gelisay degmadan degmahan loo magacaabay waxa aad ugu dhiirraday dadka lahaa in ay horumariyaan oo ay ka sameeyaan hoteelo iyo guryo jiif iyo laba hotel hadda ay ka socdaan midna u dhameystireen midna ku socdaa mid kale dhabarka ayuu ka jiraa horumarkaas ayaa ka jira dhanka beeraha oo kale qotiin badan ka jira adablaha aad baa loo qadaa sida ogsoontiin ba magaaladan waxay ahayd magaalooyinka u daayaraa magaalooyinka maanta degmooyinka kaliilka 16 degmo ayay kamid ahayd haddana maalinta ayada waxaan u maleynaa birta haanta dheer oo biyaha waxa ka jiro baayad muddada yar oo degmada dhisneed waad aragtaan macnaha horumarka la gaaray dadkii deganaa oo maartay u dhashay oo meelo badan isugu yimid horumarka waa ka socdaa gudoomiyaha degmada Dhekaasuft mudane Maxamed Maxamuud Xaddi ayaa waxa uu cadeeyay in qaybaha kala duwan ee bulshada u dhalatay degmada Dhekaasuft gaar ahaan xarunta degmada ay muddooyinkii ugu dambeeyay maalgashiyo kala duwan ka wadaan magaalada waxaana uu ugu dambeyntii sheegay in degmada Dhekaasuft ay ka jiraan fursado badan oo maalgashi isla sidoo kale waxa jira magaalada Dheka qudheeda waxa jira dad waxa weey inta iyagu isxilqaameen degmada ka fuliyay hoteelo saasoo wada aragteenba qaar way socdaan qaarna way dhamaadeen degmada waxa weey adeeg loo baahnaaday bixiyaan baa la oran karaa isla sidoo kale waxa jira degmadu waxay leedahay dahab kala duwan bay leedahay isla sidoo kale macdano kala duwan degmadu way leedahay waxaan leenahay markaas dhamaan maalgashayaasha u dhashay degmada iyo deegaanka inay fursadaas ka faa'iideystaan yaa soo jeedinahay